gudoomiyaha bangiga dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cali Ibrahim Jaamac Baghdadi ayaa hambalyo bogaadin waxa uu diray munaasabada Ciid al-Fidriga awgeed shucuubta islaamka gaar ahaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland guud iyo dibadba waxaan marka hore salaanta islaamka ku salaamaya dhamaan ummadda islaam munaasabadan Ciid al-Fidriga insha Allah berito aynu firayno in la ciido dhamaan ummadda islaamka oo dhan meel kasta jooganba waan salaamayaa waxa kale oo aan salaan u dirayaa dhamaan bulshada Soomaaliland waxa kale oo aan salaan qaaliya halkan ugu soo gudbinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi golaha wasiirada ciidamada qalabka sida golayaasha sharci dejinta iyo bahda garsoorka iyo dhamaan shaqaalaha banka dhexe Soomaaliland ee kala jooga gobolada Soomaaliland oo dhan geesta kalena gudoomiyaha bangiga dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland Master Baghdadi waxa uu ganacsada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland u soo jeediyay inay iswaafajiyaan sarifka iyo sidoo kale maciishada isla markaasina waxa ugu baaqay in ay maciishada ay bulshada kaga iibiyaan heerka uu marayo sarifka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama ay ku jiro waqtigii ciidaha ganacsatada Soomaaliland iyo adeeg bixiyaasha inaan halkan ugu diro fariintaas oo ah in aynu ognahay sicirka doolarka inuu maanta marayo gacanta dambe 8,450 marka waxaan ku boorinayaa ganacsada Soomaaliland in marka ay iibinayaan adeegooda iyo ganacsigooda ay ku sargooyaan sarifka doolarka iyo shilinka oo maanta maraya san hore u sheegay 8,400 ilaa 8,450 haddii aanu banka dhaxanahay waxaan ku dadaalaynaa oo ay tahay siyaasadda guud ee banka dhexe in uu sicirka doolarku aanu kor u dhaafin 9,000 oo shilin marnaba hoos uga dhicin 8,000 oo shilin marka khayr al-umuur awsadaha waxaanu ku booreynaa ganacsatada inay sicirka 8,500 oo noqdo sicirka wax lagu kala iibsanayo sicirkaas oo ah mid rate ama sicirka dhexe u dhaxeeya 9,000 ilaa 800 bilihii hore waxa sicirku taagnaa jiray 10,000 oo shilin ilaa 6 bilood 7 bilood ayuu 10,000 wax lagu kala sarifin jiray imika hoos buu uga digay 8,500 in lagu kala sarifto oo kaas noqdo sicirka wax lagu kala gato taa macnaheedu ma aha sicirku waxa weeyaan 8,500 sicirku isbedelayaa maalintii walba oo wuxuu kordhayaa 2,000 3,000 hoos buu dhacayaa kor buu kacayaa laakiin sicirka aan jecelahay in lagu ganacsado oo bulshadu isla ogaato aniguna aan xoojinayno inaanu halkaa wax badan kor u dhaafin ama wax badan hoos ugu dhicin waxa weeyaan 8,500 ساسان كبرية شعب السوماليلاند يكن استضبا وحمر كلا سلامة يا دمان ومدة سوماليلاند أردن يحكومة دبا